السلام الله عليكم كسو دوادا والكن waa TV-ga Jalaxy waa 5 Maarso waxa marti nooga ah barnaamijka ama aan ku soo dhaweyneynaa Dr. Axmed Dhicisow Gacal iyo gudoomiyaha isboortiga waasna aan ku soo dhaweynay barnaamijkana waxaan ugu hadli doonaa caafimaadka gaar ahaan doctorka ayaan su'aalo weydiin doonaa doctor marka hore ku soo dhawow barnaamijka. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية هذا سودويني يا مادو سلامية تيفيجا جالكسي مركب عن أوهم بلينيا ما أنت ورئيسك إلي يرنيان أي وحق ديريا إيو يبحنا كاسي كلب يقول من لقى هذا إلي يردون هذه أنا سودويني علي هاي وإذا فرنت هاي سؤالين. welcome دكتور aad ayaad u mahadsan tahay دكتور ka waran xaaladda corona oo dunida ku faafay xaaladiisa cudurkan corona ama covid-19 la dhahaa wuxuu soo bilowday sanadkii 2019ka adduunka dhan ama caalamka dhan aad ayuu u saameeyay waa cudur halistiisa leh qaabka uu faafayo waa cudur hawada iyo waxaan ku sheegaa ku faafayo contactiga wax dhan ku faafayo khaasatan cudurkan waa cudur marka hore qofka ka saameynayo habdhiska loo yaqaano respirationka marka waa cudur si zaa'id ama speedkiisa oo aad u sareeyo waana cudur walwaliyay ama dhibaato iyo murug badan oo ku furay caalamka oo dhan cudur kaliya ma ahna waa xaalado badan ayuu macnaha dadka u saameeyay marka waxaan leenahay ilaahay hanaga qabto cudurkaasi marka lays barbar dhigo Afrika iyo Yurub iyo Aasiya maxaa ya saameynta koowaad ugu badan la siiyay qaaradaha sidaan oo arkayno caalamka aan ka arkayno cudurkaani wuxuu aad ugu badan yahay wadamada Aasiya iyo Yurub iyo aad ugu badan yahay oo markii hore kasoo bilaawday cudurkaani Shiinaha ayuu kasoo bilaawday haddana adduunka ayuu aad ugu faafay marka waxaan leenahay sida aad arkeen ama idaacadaha ama website-yada aan ka arkayno waa wadamada ugu saameynta badan qaaradaha Yurub iyo Aasiya ugu saameynta badan marka waxaana sababayo markii loo fiiriyo Afrikada markii loo fiiriyo inuu aad ugu yar yahay boqolkiiba 60 kasii hooseeyo oo yahay waxaa sababay ama koosgareynayo cimilada ay haysato qaaradaha Afrika ay haystaan ayaa markaa sababaya ama koosgareynayo ama yareynayo xaddiga ama faafitaanka ee cudurkaasi. Soomaaliya maxay ka aaminsan tahay cudurka corona? Cudurka corona waa cudur dilay halis laga aaminsan yahay sababtoo ah caalamkii naga awood fiicnay dhinaca oo ahaatay caafimaadka ayuu ka qaylisiiyey ayuu manaha jahwareer iyo dhibaato u kulli marka waxaa laga aaminsan yahay cudurkan inuu yahay cudur halis ah loo baahan yahay in laga taxadiro qaabkii lagu hortagi lahaay marka waxaan leenahay cudurkaasi in laga foorjignaado ama awaamirta la bixinayo la qaato ayaa ku habboon. دكتور هذا ما حسنت هاي سؤال مرة أتكلم واجسي جواب مرة أتكلم واجسي يوروب إنه كبته أفريقيا كوير هذا ما كان كرتا إسبدل كعمل هذا markii loo fiiriyo corona virus kaani markii loo fiiriyo cimilada Afrika iyo cimilada Yurub way kala duwan yihiin sababtoo ah Afrikada cimilada aad ay u sareeyaan waa 28 ay gaarayaan halka cimilada Yurub ay aad u hooseeyaan oo qabowga u badan yahay kaasi ayaa marka koosgareynaya ama sababayo inuu cudurkaani ku bato Yurub oo ku faafo oo ku yaraadana Afrika oo ku yaraada Afrika waxaa ka hortagayo cimiladaas ayuu soo ku noolaan karin ayuu ka hortagayo taas ayaa marka sababaysa inuu u dhaco isbeddelkaasi ama faafitaankiisa aad ugu yaraado. maxaa looga hortagi karaa cudurka? cudurkan coronaviruska waa cudur virus ah virusna sida la ogsoon yahay waa automatically daawo hadda oo looga hortagayo male waxa ugu horeeyo u ah aas ama asal u ah nadaafadaasi oo ugu horeyso inaad gacmahaada
aad dhaqdid si joogso ah u dhaqdid adoo isticmaalayo saabuun iyo antiseptic ah adoo isticmaalayo oo wax jeermiskaasi baabi'i karo isticmaalayo. qodobka labaad waa inaad ku dabooshaa cover amaba tiish amaba wax nadiif ah, shay nadiif ah afkaaga iyo sankaada aad ku dabooshaa markaad qunfacaysid, markaad indhishaysid inaad ku dabooshaa sida looga hortago inuusan ku faafin oo dad kale. sidoo kale waa inaad ka fogaataa meelaha oo dadka ay aad ugu buuxaan isugu imaanaya goobaha, waa in laga fogaada sababtoo ah hal qof hadduu cudurka uu hayo oo meesha ku dhex jiro wuxuu saameyn karaa dad badan ayuu saameyn karaa. sidoo kale waa inaad ka fogaataa contactiga amaba taabashada, inaad lis shumiyo, inaad lis salaamo, gacmihii iyo wixii contactiga zaaidka u badan in labnaha la yareeyo, lis ilaaliyo ayaa cudurkaani looga hortagi karaa. sidoo kale qofka inuu isku ilaaliyo gurigiisa ama isolate iska dhigo oo qofkii ama laga helo cudurkaasi la isolate gareeyo oo meel gooni ah laga isolate gareeyo, sida hadda ay dhakhaatiirta ay sheegayaan qofka 14 maalin kabacdi amaba adiga 1 month qofkii inuu noqonayo safety oo noqonayo la isolate gareeyo. qaabkaasi ayaa marka cudurkaani looga hortagi karaa sababtoo ah cudurkaani waa cudur ku faafaya hawada ku faafaya. haddii marka hawada ku faafaya waa inaad la controlaa waxyaalahaas dhan wada soo sheegay, amaradaas la qaataa. qaabkaasi ayaa looga hortagi karaa cudurkaasi. waxaa jira dad aaminsan in dadka muslimiinta uu ku dhicin, waana dareemi kartaa Sweden dad badan uu ku lahay meelo badan oo ka mid ah qaaradaha dunida. dadkaas doctor maxaa ku baraarujin lahayd? waxaan ugu baraarujinayaa horta musiibadan musiibo ilaahay oo keeno waayo. musiibana markay imaato waxay camimaysaa ummadda dhan, way camimaysaa, ha aado qofkan muslim ha ahaado qofkan gaal ha ahaado. sababtoo ah ilaahay wuxuu leeyahay haddii qofkiina ka mid ah oo dembi oo sameeyo musiibo ay imaato ma kala reebayso, kii dembiga galay kelima taabanaysa dhammaan ay camimaysaa. marka waxaan leeyahay ma ahan fikradda ay ka haystaan dadka qaarkood ay ka haystaan ay leeyihiin cudurkan wuxuu ku dhacaa dadka gaalada iyo ku dhacaa kelimaan. cudurkani waa musiibo oo ilaahay keenay, musiibadaasna waxay saameynaysaa cid kasta oo dunida joogto ay saameynaysaa. marka waxaan leenahay loo kala ordo habkii looga hortagi lahaa iyo habkii iskaga difaaci lahay. maahan ani muslim aan ahayn uu dhacayo, arrinta ma ahan, way ka duwan tahay taasi. marka waxa waye qof walbaba arrimooyin badan ayaa lasoo bandhigay, dhakhaatiirta way ka wada hadleen, idaacadaha way ka wada hadleen, qofba macnaha loo manage gareyn lahay oo cudurkaas looga hortagi lahay. marka awaamirtaas hala qaato si cudurkii oo u yaraado oona loogu badbaado. doctor ugu dambeyn degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan caafimaad ahaan mar ka dambeyso uu sii hagaagayay, haatan heerka uu taagan yahay degmada ma yahay meeshii looga baahnaa caafimaad ahaan? degmada Jallaqsi ma ahan stagekii looga baahnaa amaba habkii looga baahnaa caafimaadka waa hadba heer ayuu maraa. hadda waxaan taagannahay waa heerkii dhexdhexaadka ah. marka waxaan leenahay marka si loogu gudbo oo loo tago meeshii ugu wanaagsaneed in gacmaha la isqabsado, dhammaan dhakhaatiirta joogto degmada Jallaqsi iyo kalkaaliyaashooda inay isu gacan furnaadaan, ay horey loo dhaqaajiyo caafimaadka iyo goobaha caafimaadka. sababtoo ah maalmahan iyo bilooyinkan degmada Jallaqsi waxaa ka socday shubankaasi oo asigana ay ka hoosgareeyeen biyaha wasaqda la cabayo iyo nadaafad la-aanta iyo wacyigelin la-aanta ay sababeen. marka waxaan leenahay inaan dhammaan dhakhaatiirta Jallaqsi iyo degmada maxaan ku sheegaa iyo kalkaaliyaal ay u istaagaano sidii horey loogu wadi lahay caafimaadka. intaas ayaan ku dardaarmayaa. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa doctor Axmed Ciisow Gacal oo marti noogu ahaa barnaamijka caafimaadka. halkaad naga daawanaysaan waa TV-ga Jallaqsi, taariikhduna waa 5 Maarso. sidaa iyo nooli kulanti.